مكتل بريزيدنت markuu hore madaxweynaha xogeenka Jubbaland የዛካዊ አስተዳደር maamulka deegaanka degmada Doolow ከዛ ከፌደራል መንግስት ፓርላማ አባላት የመጡ dawladda federaalka xildhibaan dawladda federaalka naga soo gaaray shirkan ከጁዋላንዲ የተለያዩ አካባቢዎች ለዚህ ሽንግልና የመጡ Jubbaland xubnaha kamida oo meel dheer nabadeyntan maslaxadan u imaaday እንኳን ከተለያየ ድካም ከብዙ ልፋት በኋላ እንደዚህ ለመጋባባት ለሰላም ለመፈራረም ለመስማት እንኳን አበቃችሁ intaasoo daal intaasoo waqti ah ku bixiyay shirkan inuu masuurta gala nabadna ay dhacdo dadaal weyn u maray ስለተስማማችሁ ወደዚህ ደረጃ ስለደረሳችሁ ነው በጣም ደስ ብሎናል maadaama arinta meel wuxuu ka soo qaadeen maanta meesha ugu fiican oo maanta lagu farxay ay maraysaa soo dhigteen በሰላም የሰላም ዋጋ በጣም ብዙ ነው nabadda helideeda si lagu keeno aad ay adag tahay እነዚህ በጦርነት ምክንያት በግጭት ምክንያት ህይወታቸው የከፈሉ ሰዎች dadkan intaasoo dhibaato ah ama intaasoo naf mala yacni ugu gooday አሁን ካስቀመጣችሁት ካሳንኳ ከዛ በላይ በቀመጥ ህይወታቸው መመለስ አንችልም dadkii aad dhiigoodi hadda maslaxadan aad ku go'aamiseen iyo inta kale hata dhiigood waa la bixin hadii la wax awood loo helo maaha waa wax aad weyn ዋናው ሂሳብ ማወራረድ አይደለም muhiimadda dhiig kala qaybsi maaha iyo magac dhiig bixin maaha ስለዚህ ሁለተኛ እንደዛ አይነት ጉዳት እንዳይደርስ መከላከል waxa fiican wixii mar soo artid inaad ka waasaqaatid waxayna soo mar dhibaato inay xuntahay inay maslaxayeen waa aragteen taasina ka soo qaantaa lambarku ስለዚህ አንድ ጎጂ ሌላው ተጎጂ መሆን የለበትም ምን inuu dhaabsado ምን uu dhibooda aad lagu fiicay እና ቀጣይ መሰራት ያለባቸው እንደ ሽማግሌዎች እንደ ጎሳመሮች እንደ መንግስት በቁርጠኝነት መተግበር ነው wixii hadda go'aan odayaalka ama deegaanka ama mas'uuliyiinta wixii go'aan oo la go'aamiye in la fuliyo በጠቅላላ ድምሩ ለሰላም እጅ መስጠት በመሬትም በፈጣሪም ያስከብራል tan kala qofka hadii marba nabadda u soo diyaar garoowa ilaahayna adduunyo aakhira abaal janno ka siin ለሰላም እጅ የሰጠ አፍሮ ያቅም nin nabad gacmaha u dhiibtine waligiis bixeegoobin ከሰላም የሚጎዳ ኃይል ደግሞ የለም nabadna cid ay wili dhibaato u geysatay lama sheegin የምጠቀም መስላቸው ነው እንጂ እንደዚህ በጦርነት የምጠቀም መስላቸው ኃይሎች መጨረሻ ያው ከጦርነት ተጠቃሚ የለም dadka dhibaatada inay wax ka helaan u maleeyo dhibaatada inay bulshada ku laxaboolaan dibka ka shaqeey kullu ay nabad baa u dambays ስለዚህ ይሄ ሰላም እንድጠቃ የበኩላችን በማድረጋችንና በእናንተ ደግሞ ምስጋና ስላቀረበ እኛም እናመሰግናቸዋለን marka idinkan maadaama nabad iyo wanaag aad isku afgarteen nabad iyo wanaag aad isku afgarteen annagana inaan dhiirigelino diyaar u nahay ነገር ግን እኛም ደግፋችሁ annaga laakiin waxaan taageersanahay ለእናንተ በማዘን ብቻ አይደለም idinka kaliya ma aha እኛ ጥሩ ጎረቤት ከሌለን እኛም ሰላም አናገኝ waxaan u kalifa inaan nabadiina aan taageerna hadda deriskaaga uu nabad qabin adna nabad meelays ስለዚህ ይሄ ሰላም እንድሰካ ስንሰራ ለራሳችንም ጭምር ነው marka nabadan inay suurta gasho waxaan habeen maalin ugu taaganahay dantanada ku jirta derisahan ጎረቤት ሰላም ሳገኝ ሁሉ ሰላም ይሆናል guriga ku dhagan haduu nabad helin guriga ku dhagan nabad ma helay እኛ ደግሞ ለሶማሊያ ህዝብ የቁርጥ ቀን ልጆች መሆናችን ከናንተ በላይ ሌላ ምስክር የለም annagana kulay shacabka Soomaaliyeed inaan wiilishiinahay marqaati meel ka laga baraadina inta aan wada joogna iyo inta aan sadeegna waa dareemaysin nabadii aan ka shaqeynayna ስለዚህ ካሁን በኋላ ይሄ ሰላም ወደ ኋላ እንዳይመለስ waxaan ka codsanaa bis walaalayaal nabadan madam gadaashaas ugu noqonin ቅድም እንደተዋለው ተጀምሮ እንዳይቋረጥ sidii loo bilaabo hadana aan haday loo sheegay aan la kala goynin በትጋትና በጥልቀት እንድትሰሩ inoo si oo isheeg lillahi aad ugu gashaan lillahi nabadan aad ugu maradhalsaan ከኛ የሚያስፈልገው ነገር ማንኛውም አይነት ድጋፍ ካለ ደግሞ እንደምንደግፋቸው አጋጣሚ ቃል መግባት እንፈልጋለን annagana waxaan ballan buuxin ka qaadaynaa wax allah wixii kaalna dhinaca loo baahana inaan diyaar noqon aan qaban ስለዚህ የኛ የኢትዮጵያ መንግስት በመሰጠን አቅጣጫ የሰራዊት ሚና ጸጥታ ማስከበር ነውና የሚያስፈልጋቸው ነገር ካለ kaalinta naga siisay waa amniga ama ciidamadaas habeentoodii iyo isheeg maslaxadoodii wanaagooda inaan ka shaqeyna taas diyaar u nahay ስለዚህ በየአካባቢው ሲያዳምጣቸው የነበረ ሰው በስጋት በጥርጣሬ የነበረ ዛሬ ለዚህ ደረጃ በቅታችሁ የእናንተ ዜና እንዴት በጉጉት እንደምጠብቀው ጥሩ ስላበሰራችሁ በጣም ደስላችሁ ይገባል dadkii oo maslaxadiina iyo wanaagiina intaas ka shaqeynay ama u sii dhagataagay oo deegaamada kala joogay in ka warsibay maanta aad iyo aad u faraxsiin ጥሩ ጀምራችሁ ጥሩ ስለጨረሳችሁ ደግሞ በድጋሜ በግልና በተቋም ስም ማመስገን ፈልጋለሁ
marka waxaan ii mahadcelinaa sidii wanaagii iyo daalkii aad ku bilowdeen intii dhibaataa soo marteen iyo maanta meesha aad geyseen wanaageeda boqolkiiba boqol ii mahadcelinaa ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በያስታወስን ያከበርናችሁ እንኖራለን በጣም አመሰግናለሁ taariikh baa noo noqon mar kastaan xasuusanaynaa meel kastaan ku sheegaynaa